kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin la-aantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixin gaar oo idinkaga diyaarinay 10 qof oo dhaqaalaha ugu badan ka sameeyay YouTube-ka sanadkii tagay. Jamie Donaldson oo ah 23 sano jir u dhashay dalka Mareykanka kuna magac dheer Mr Beast ayaa noqday shaqsiga lacagta ugu badan ka sameeyay barta YouTube-ka sanadkii 2021 sida laga soo xigtay wargeyska Forbes. Jamie ayaa waxaa bartiisa YouTube-ka ka daawatay sanadkii tagay in ka badan 10 bilyan waxa uu ka sameeyay lacag dhan 54 milyan oo dollar. Waxa uu ka hormaray wiilka yarka ah ee 10 jirka ah ee lagu magacaabo Ryan Kaji kaasi oo kaalinta koowaad ku jiray labadii sano ee la soo dhaafay. Jamie Donaldson waxa uu bartiisa ku soo bandhigaa muuqaalada kamerada qarsoon ee loo yaqaano prank. Dadka galay 10 kaalmood ee ugu horeeya ayaa waxa ay sanadkii tagay ay bartaasi ka heleen lacag lagu qiyaasay 300 oo milyan oo dollarka sida ay sheegtay Forbes. Jake Paul ayaa ku jira kaalintii koowaad isagoo ka soo muuqanayay liiska 10 qof ee ugu sareeya tan iyo 2018. Sidoo kale walaalkiis Logan ayaa ku soo laabtay liiska kadib markii uu ka maqnaa tan iyo 2017. Ciyaaryahan Minecraft Nathan Graham oo loo yaqaan Unspeakable ayaa liiska markii ugu horeysay ku soo biiray isagoo galay kaalinta 5 intii uu caalamka ka jiray xanuunka COVID-19. Warbaahinno badan oo ah kuwa madadaalada ayaa waxaa la soo gudboonaaday waqti adag, balse barta YouTube-ka ayaa xilligaasi waxay u ahayd mid dhaqaalaheeda uu kobcay. Cilmi baaris la soo saaray ayaa muujinaysa in 2021 ay barta YouTube-ka ay daawadeen 2.3 bilyan oo qof guud ahaan caalamka. Shirkadda YouTube-ka ayaa sheegtay in 1 bilyan oo saacadood maalin kasta la daawado muuqaaladeeda guud ahaan caalamka. Waxaa kaalintii 10aad galay Preston Asment. Waxaa sanadooyinkii u dambeeyay sii kordhayay dadka ku xiran barta YouTube-ka uu ku leeyahay Preston, taasi oo lacag badan ka sameeyay. waxaa lacagta uu sanadkii 2021 uu ka helay lagu qiyaasay 16 milyan oo dollar. Waxaa kaalinta 9aad galay Logan Paul, waa feeryahanka muranka badan dhaliyay, waxaana in kaalinta 10aad uu soo gala ugu dambeysay 2017. waxa uu sanadkii tagay ka sameeyay barta YouTube-ka 18 milyan oo dollar. waxaa kaalinta 8aad galay Dude Perfect, majaajilista sidoo kalena sameeya muuqaalada kamerada qarsoon ee prank loo yaqaano ayaa waxa uu liiska sanadkii 2020 ka galay kaalinta 8aad. sanadkii 2021 waxa uu bartiisa YouTube-ka uu ka sameeyay 20 milyan oo dollar. waxaa kaalinta 7aad galay Ryan Kaji, waa wiil yar oo sameeya muuqaalada bombalaha iyo kartoonada caruurta. sanadkani hoos ayuu u soo dhacay waxaana uu soo galay kaalinta 7aad. waxaa kaalinta 6aad galay Nastya, gabadhan oo u dhalatay Ruushka ee 7 jirka ah. waxaa barteeda YouTube-ka ku xiran ku dhawaad 90 milyan oo qof. waxay sanadkii tagay barteeda ka sameysay lacag dhan 28 milyan oo dollar. waxaa kaalinta 5aad galay Unspeakable, waxa uu bartiisa YouTube-ka muuqaalo ku soo gudbinayay in ka badan 10 sano, waxaana uu sanadkii tagay 2021 uu ka helay lacag lagu qiyaasay 28.5 milyan oo dollar. waxaa kaalinta 4aad galay Red and Link waa nin caan ka ah barta YouTube-ka isla markaana waxa uu sanadkii tagay ka sameeyay lacag dhan 30 milyan oo dollar. waxaa kaalinta 3aad galay Wikipedia, waxa uu Wikipedia soo galay kaalinta 3aad, waxa uu sanadkii tagay ka sameeyay 38 milyan oo dollar. Jake Paul oo kaalinta 2aad galay. Jake Paul waxa uu sanadkii tagay galay kaalinta 2aad, waxa uu 2021 bartiisa uu ka helay lacag dhan 45 milyan oo dollar. waxaa kaalinta 1aad galay Mr Beast, waa ninka lacagta ugu badan ka sameeyay barta YouTube-ka isagoo ka helay sanadkii tagay lacag dhan 54 milyan oo dollar. 5 qaab oo lacagta looga sameyn karo YouTube-ka. markasta oo aad aragto qof YouTube-ka dhaqaale ka helo ma weydiisaa imasaad ka heshaa. Evan Ondiga oo lacag badan ka sameeyay YouTube-ka ayaa sheegay, waxaan dadka u sheegaa qiyaas ahaan. wuxuu go'aansaday in uu sharaxo sida lacagta looga helo muuqaalada la geliyo YouTube-ka. wuxuu arrintaasi la wadaagay malaayiinka qof ee daawada muuqaaladiisa YouTube-ka. ku xiridda xayeysiimaha. tallaabada ugu horeysa ee YouTube-ka aad lacagta uga heli karto waxay tahay xayeysiimaha, ayuu yiri. qayb weyn ayay ka qaadanaysaa dhankaasi, laakiin inta waqtiga uu socdo oo ah marka uu YouTube-ka ay ku lug yeelato faa'iidadaada way sii yaraanaysaa. Evan wuxuu arrintaasi ku sheegay xayeysiinta aad aragto ka hor inta uusan ku bilaaban muuqaalka oo dhammaystiran ee YouTube-ka aad ka daawato.
haddii kumanaan ay daawadaan xayeysiimaha ku lifaaqan muuqaalka qofka soo geliyay YouTube-ka waxaa la siinayaa lacag qiyaasta waa $1 ilaa $5, balse dhowaanahan taasi way yaraatay. YouTube-ka waxay qaadanaysaa 50% dhaqaalaha guud ee laga helo xayeysiinta sida uu sheegay Evan, laakiin wuxuu sheegay in haddii si fudud aad u samayso muuqaalka oo qiyaas ahaan 1 milyan oo qof ay daawadaan waxaa laga heli karaa $1,000 ilaa $5,000. 2. Patreon. Dadka YouTube-ka muuqaalada geliyo waxay isticmaalaan waxa loo yaqaano Patreon sida uu sheegay Evan. Ka fikir sida in ay tahay sirta yar ee online-ka ayuu yiri. Waad arkaysaa muuqaalka haddii aad jeceshahay ama haddii aadan ka helinba, laakiin haddii aad jeclaato aadna doonayso in aad taageerto waxaad bixinaysaa $1 muuqaalkiiba ama $1 bishii. Qaar ka mid ah dadka YouTube-ka ku xiran waxay samaysteen meel iyaga u gaar ah halkaas oo macaamiisha lacagta bixisay ay ka heli karaan muuqaallo u gaar ah. Waxaan Patreon isticmaalayay muddo sanad ah. Daawadayaasha lacagta bixiyay ayaa arki karaan muuqaaladayda xilli hore ayayna daawadaan. Mararka qaar su'aalo ayay i weydiiyaan. Way fududahay mana filayo wax kale ayuu yiri Evan. 3. Ku xir lifaaqyo kale. Tani waa in ay noqoto wax la xiriiro dharka, waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan. Waana xilliga ay YouTube-ka arrintaasi si gaar ah ugu xiraan alaabaha kala duwan ee qoraalka la socdo. Waxayna u furayaan waddo ay ku sii socdaan oo xayeysiimo ah. Maahan oo keliya in ay ku faraxsan yihiin xayeysiinta, balse waxay helaan saami gaaraya 5 ilaa 20% ayuu yiri Evan. Marka waan ka mahadcelinayaa in alaabta dadka ay gaarsiiyeen. Haddaba haddii alaab aad ka iibsato internetka oo aad ka aragtay lifaaqa YouTube-ka qof kale waxay u badan tahay in ay lacag ka helaan. 4. Ganacsiga. Alaabta kala duwan sida barafuunada, dahabka, dharka ama qolofka telefoonada iyo waxyaabo kale dadka YouTube-ka soo geliya waxay ka helaan lacag badan. Tani uma baahna sharaxaad dheeraad ah. 5. Xayeysiinta shirkadaha. Heshiisyada shirkadaha waa waxa ay YouTube-ka dadka ku xiran oo ay lacagta ugu badan ka sameeyaan ayuu yiri Evan. Waa xilliga ay shirkadaha lacagta siiyaan dadka YouTube-ka ku leh taageerayaasha badan si ay muuqaallo ku saabsan alaabtooda u sameeyaan. Waxaa loogu bedelaa taasi dhaqaale aad u badan. Waxaad ka heli kartaa lacag 12 jeer ka badan midda laga helo xayeysiimaha kale ee lagu xirto muuqaalada ee loo garanayo AdSense. Taasi waxay kula muuqataa la yaab, balse waa run ayuu yiri Evan. Nin aan isla degannahay wuxuu heshiis $20,000 ka helay shirkad uu magaceedu u xayeysiiyey, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Wuxuu sheegay in midda ugu wanaagsan ay tahay heshiiska iyaga looga ogolaanayo in ay wax u sameeyaan, waxayna sameeyaan muuqaal aysan shirkadaha samayn karin iyaga la'aantood. Maxaad kala socotaa weerarada xuquuqda lahaanshaha ee YouTube-ka? Shirkadda tiknoolajiyadda ee Google ayaa dhowr YouTube ah ka saartay khadka kadib markii lagu helay xadgudub dhanka xuquuqda lahaanshaha. Kenzo iyo Obi Reeds oo bartooda YouTube ah si weyn loo daawado ayaa helay fariimo lacag loogu dalbanayo si dacwadaha ka dhanka ah meesha looga saaro. Fariimahani ayaa waxa ay ka digayeen in haddii ay lacagahaasi bixin waayaan ay sababi doonto in qofka saddexaad ee xuquuqda lahaanshaha uu arrintaas soo geli doono. Haddii ay taasi dhacdana shirkadda Google ayaa waxay hawada ka saaraysaa bartaasi YouTube-ka ah, balse markii dambe waxaa hawada ka baxday bartii YouTube-ka ee falkaasi sharci darrada ah sameynaysay kadib markii ay soo shacbaxday hanjabaadda bartaasi. Kenzo iyo Obi Reeds ayaa labaduba helay fariimo lagu dalbanaya lacago gaaraya ilaa $400 oo ay ku dirayaan shirkadaha PayPal iyo Bitcoin, balse labaduba wax lacag ah ma aysan bixinin. Bartaydii YouTube-ka 2 goor ayaa weerar dhanka xuquuqda lahaanshaha oo been abuur ah lagu soo qaaday ayuu yiri Kenzo. Sida ay u fududahay in aad sheegato xuquuqda lahaanshaha waa in qofka sheeganaya xuquuqda lahaanshaha uu soo gudbinayo macluumaad ku saabsan halka lagala xiriirayo iyo faahfaahinta xuquuqda lahaanshaha ee uu sheeganayo. Kadibna qofka dacwadda gudbinaya waa inuu aqbalaa ganaaxyo sharciga waafaqsan oo laga qaado waa haddii ay macluumaadka uu gudbiyey ay noqdaan kuwo been abuur ah. Obi Reeds ayaa sheegay in haddii ay arrintaasi haatan waxba laga qaban ay mustaqbalka saameyn ku noqon doonto bara badan oo YouTube ah. Weerarada xuquuqda lahaanshaha ee barta YouTube-ka. YouTube-ka ayaa waxaa caqabad ku haya habka lagu ogolaanayo macluumaadka ku jira muuqaalada ee ku aadan xuquuqda lahaanshaha. Habka bartan ayaa sanadkii 2018 la dhaleeceeyey kadib markii YouTube-ka ay heshay ogeysiis dhanka xuquuqda lahaanshaha oo been abuur ah. Waxaana dhacday in barta lagu qabsado muuqaal hees ah
oo ay barta gaar u lahayd.